وإناد آمنتا أو يقينسا رزقك وكو إيمانيا وكو إيمانيا أما بدا صارنو أما بريغا صارنو أما عافمات قد أما جرنو موايي سيد وكو إيمانيا يقين تاس كو سيحكونا سوتوس ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام وحو إن بريا هذه الرزق سيداس هي إن أن نكون رادين ميل اللوق حيل إيه حيل ضيسي حرام أن كنت رادين إن أن الرزق يكون رادين ما دام أنت نلوقو تلقلي أن هليلينه وحي أن لو قرنا أن نهلهين إنه اسكعل على طريق أن إلهي رالي كأهين إن أكون رادين والنبي يقول إن روح القدس نفث في روحي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها ملك جبريل وحو إيقو أفوفي نفتيدو إيو وحيودي نف لمن يسائنين ننشرين إلى رزق يدي أي أفسطو أجش يدينا أي لما يسترطو هذي هالكاس آيتهاي أي النبي يقول عليه الصلاة والسلام ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق قفيين كو حنبارين إذن كمد دهسشو دهسدي رزقي أوربي أو دهسدي إنه أن يطلبه بمعصية إنه رزقي يكون هذه الطريق حرام يين كو حنباري اللي بني آدم كدقدق باكو سوغان قورمي قاريسا وحفي عن أو بدن إنها هشد بو إليه هاي markaasuu wuxuu ku didaalayaa inuu gaaro yeenan arinta idin ku xambaarin dariiq xaraam ah ina rizqiga ku raadisaan fa inna allaha ta'ala la yunalu ma 'indahu illa bi ta'atihi ilaahay agtiisa waxa yaalo oo kayd ah oo khazaa'in ah oo xoolo iyo geyrkeedba ah ilaahay subhanahu wa ta'ala agtiisa waxa yaalo laguma gaaro illa ilaahay ridihiisa إيه طاعتي سميان وحكى لكم الجار والحديث كاس النبي يقول لي هي فاتقوا الله وأجملوا في الطلب إلهي كعب صدى وقابك وحر هذين إنسان قرحية طلب كينا قرحية طريق حرامها كل هذيننا طريق حلال كل هذية إسكائل عليه النبي عليه الصلاة والسلام وحينو الشيء هيا إلهي إنه الله طلعي ابن آدم كه وحا إلهي إليه يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك ابن آدم عبادة إذا التفرغ عابد دا عابد يسد إيا كشقين تطاعض إذا كشقين يسد التفرغ قلبي قاقا وحان كبو حين يا غني النمو فقرك أنا إرديه سواء كأوديا بلن با إلهي كوقات هذا إلهي طاعدي سكون مشقوشد أو وحول بآخرات كهر مريسد إلهي وحكو بلن قاضي قلبي قاقا إنه إلهي غني النمت لقهايو فقرقنا إلهي أكا أودي وإلا تفعل أي إلهي سيدا هدادا صمين أملأ يديك شغلا ولم أسد فقرك قعناها مشغول بان قورتا كو غلينيا فقريغاغنا مدبوليو باهيدادو way taagnaanaysa wax kasto aad haysi waa baahanta qalbigaaga ayaad ka baahanto ka gubanaysa waxaan ku hor yaala dareenka kugu jira waxa weeyaan xagee ka ziyaadisa hebel see uga daba tagtaa hada intaas ku dari lahayd hadii intaas ay ku dhamaystirmi lahayd mar hore iska cibaadeysan lahayd oo waa ka nasan lahayd waliga taas baad ku jiraysaa ilaa geeridu ka timaado ballan ilaahay wuxuu ku ballan qaaday hadaada nin aakhira aadan noqonin ee nin adduunyo aad noqotid in qoorta lagu geliyo fakhri aad ka caranaysid oo habeen iyo maalin ay isleedahay halkan fakhri baa kaaga soo dhawaanaya mashquulna qoorta lagu geliyo aad ku mashquulaysi adduunyo raadinteed waxa kaaga imaanayaana ay tahay intii lagu diiwaan galiyay oo kali ah adduunyadu qofka raba iyo qofka aan rabin oo ka caranahaya ayadu ma dhihi karto qofkan waa ay rabaa anna waan rabaa waa aadaya qofkaani waa iga jeesto waan ka jeesanaya ma dhahayso
qof kaani adduunyada hadduu ka cararo waxaa ka daba imaanaya intii loogu talagalay midkaana hadduu adduunyada ku mamanaado oo raadiyo habeen iyo maalinba u labisto waxa uu ka helayaa intii loogu talagalay maamul ilaahi ah oo ilaahay uu maamulayo ayaynu hoos harsanaynaa maamulkeenu waxa ka hirgelaya waa inta ilaahay uu ka ogolaado ma sha Allah kana wama lam yasha lam yakun asbaabaha rizqiga lagu raadiyo dhibaatooyinkana looga hortago waxa kamid ah al-istiqaama ala sharci Allah ilaahay daacadiisa qofku inuu ku toosnaado oo sharciga ilaahay ku toosnaado haday kala noqoto sharciga ilaahay hadaad ku mashquushido ku diinta iyo barashadeeda iyo khayrka ku mashquushid furas badan baa ku dhaafaya haday kala tahay maya halka ma jirto waxay jirtaa ilaahay meesha uu dhigay oo ah daacada ilaahay lagu mashquulo wa allaw istaqaamu ala tariiqati la asqaynahum ma'an ghadaqa haday wadada fiican ku toosnaan lahaayeen biyo wanaagsan baan waraabin lahayn barakaadki samaawaadki arlada loo furi lahaa ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض هذا دتك مقالوين كتشوغا إلهي رميان وإلهي كبقان إلهي وحو أفرها يا وحويان وأفر لها سماوات كبركات كودا إيا أرلدا وحا بركيا الله بالله أفر لها روب كيبا الله سودين يا دول كان خيرات كيسيبا الله صار يا مركزان نولبا خير يا برواقة وكدرقيا ضاعد إلهي بالمرادية وحال الرادية رزقك أو لقود الباء صلة الأرحام رحم كأول حريريه أيها الرادية نبي وحي عليه الصلاة والسلام من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه قفك دون هيا رزقك إن الله واسعيه وحويا عمرك سنة الله ديريه qofkaasi waxa weeyaan qaraabadaha xariiriyo riximka iyo qaraabadaha xariiriyo masaakiinta ha garab istaago dadka nacfi ha u lahaado weey qofku hadduu bulshada nacfi u leeyahay oo danta guud iyo khayrka kala qayb qaadanayo ilaahay wixiisana waa u barakaynaya risqigiisana ilaahay waa ugu waasicinaya wuuna helayaa meel uunan ka malaysanahay buu ka helaya ولذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام وحول ليه إن لله عبادا إلهي وحول ليه أضامه اختصهم بالنعم نعموين بإلهي سيئي أو كخاصية لي لنفع العباد سيئي أضامه أو أنفعان أي إلهي النعم يحوله يهانت إلهي أسي يقرهم فيها ما بذلوها إلهي نمعدا أوسيي وكل حسوغيا وكو إلالينيا انت أي بحنا هيان فإذا منعوها نزعها منهم وتحولها إلى غيرهم هذا ديدان نمعدي إلهي أوسيي إني بحيان إلهي واكسيبيا وحونا أوريتشينيا كوكله أو ضدك كو أنفعه waxa adigu aad haysatido ilaahay uu ku siiyay waa wax ilaahay dad badan oo nan siinin ada ilaahay kugu khaasiyay dad kooban ba ilaahay siiyay waxa ilaahay u siiyo xikmadahay waxa weeyaan ba nabigu yiri linafci al-ibad adoomada ina ku anfacdid waxa khayrka ina kaga shaqeys oo adoomada kale ku anfacdid ilaahay ba ku dhiibay dhiib baa lagu yiri markaas nabigu yiri alayhi salatu wassalam انت اي نفعغاس بخينا هيان الهي واكوبه هيان وانا كسغا يقرهم فيها ما بذلوها انت اي بخينيان الهي سبحانه وتعالى وكدخسغا هيان فاذا منعوها مالك يديدان ما كو ايمانها هيا نزعها منهم الهي وكسيبي كو كلو بخينا هيا الهي وديبيا قف wax bixiya oo wax bixin oo bixinaya daraadeed faqri u noqday lama sheegin qof wax ilaaliyay oo ku bakhiilay oo ku guulaysto liimaan ku gaarayna lama sheego bal u fiirso qofka wax ku bakhiilo wax haysta wixiisana ku bakhiila waajibaadkii uga bakhiila khayrkii iyo nafciga uga madda uga bakhiila ilaahay agtiisa amaan kuma leh
dadka agtoodana ammaan kuma leh bal u fiirso qofka nacfiga dadka u leh ilaahay agtiisa ammaan buu ku leeyahay dadka agtoodana wuxuu ku leeyahay ammaan iyo khayr baa u taala maalin buuna u baxsanayaa xaaladiisu adag tahay khayrka uu la baxayo marnaba ku qadimhayo aakhira intaan la gaarin adduunyada u baxsanayo imisa ilaahay ku caafiya dad anfacay fuqara ah oo masaakiin ah imisa ilaahay amraad uga dul qaada dad jirana imisa ilaahay ku anfacay